السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bulshada Soomaaliyeed ay seetihiin ma faydaan arma faydaan yaa maxaan samaynayaa wal waxaa arki jirtay anoo markaan afuro socda soma hadana maanta waxaa ujeeda anoo sooman subax barqada tahay because maanta waxaa jirta qorax aan caadi ba ahayn ayaa jirta marka runtii bandowgii hadda waxaa moodaa xoogaa in laga soo baxay maanta caruur iyo hooyooyin iyo dad waaweyn baa meelaha marmaraya because qorax waxaa jirta caadi ahayn maasha allah. waa halkeedii socodkii iyo maxay ahayd dad baa meeshan joogan ka duwaya استيحة سنفر أمان استيحة فتحه أريمه هذه قاسك أهوي وصعدك يا صاحبة لقي سنة شيء هاي تاي ده ماش مرة كل حين هاي باشا مرة واح ما أنت وادور كل صبح horta wax yarna waan rabay oo yara aan rabay inaan kala hadla bulshada Soomaaliyeed na waan rabay runtii halka meel ay cagaar ah fuulaya wax yarna waan rabay bulshada Soomaaliyeed aan kala hadlo oo wacyigelisa runtii okiyalahayga waa siibtay marka maradana meeshaan ku qarinayaa dhowr inkastoo dee hadda iska noqoto caadi in baasha la isku duubo horta waan salaamay dhammaan saaxiibayaal waxaan rabaa wax yar oo aan yara maaragtay la yaabay bulshada Soomaaliyeed la qaybsado salaam baa horta waan salaam dhamaantii waxay tiri mar dhixo aan fiidi duuhay ayaa waxay tiri gabar dhalay hooyaysan ka faraha ka taa ya hooyaysan ka faraha ka taa ayuu tiri moogta marka waa isku dayayaa maasha allah yaan san ka faraha ka daayay marka horta saaxiibayaalow iyo bulshada Soomaaliyeed bini aadanka horta runtii dad baa waxay ka raadiyaan bulshada dhaleecaynteeda iyo dadka dabagalkiisa iyo inay bulshada maaragtay ay ka yara qareexaystaan laakiin runtii ma wax wanaagsan maaha horta waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo meeshaan dhirta iyo cagaarkaani waxaan iska day iska fiirihe Soomaaliya iska fiirsha ummaddu say u nooshahay say u socoto say u lugaynayso dadka waa ka duwaayaan moogta waxaan arkay weligay horta ma jeclayn Soomaalida aan ku mashquulo ama dadka ku mashquulo ama dadka aan waxay dhahan ka daba dhaho ama dadka waxay yiraahdaan aan iraahdo ama maaragtay waxaan arkay naag riwaayad dhigaysa dadka magaciisa in la sheego ma ilama habboon aniga laakiin kulli hadda is garan doonaan hadday soo jawaabi doonaanna oo is gartaan jawaabteeda waa loo heli doonaa waayo hadday fanaan yihiin fanaan waa lala yahay waa lala noqon karaa hadday abwaan waa lala noqon karaa hadday xataa waxaa lala noqon karaayoo kale maaragta majaajileysta lala noqon karaa laakiin waxaa fiican ummaddu maynay kala yara maaragtay wax haddii la sheegaya wax reality kolba la sheego bulshadu fiirsan karto waxaan arkaya qof dumar oo loo soo diray dumarka wax lagu soo shubto waxa lagu yiri waxa iska dhigta islaan diaspora oo boorso weyn qabta oo kiyaal qabta mid madow
dad rag baa wax ku soo shubta waxay yiraahdeen waxa iska dhigtaa islaan diaspora oo ku yaala waaweyn markaas waxay tiri oo nimanka shukaansataa la yar habbo waa dhacdhacaano markaas waxay dhahdaa 45 aan jiraano 3 caruur iyo 5 waxay tiri ma waa leeyahano waxa waaye abbo dhehno abbaay dhehno oreya Mareykan ku geynano kaalay lacag meeqa u baahan tahay marka saaxiib horta laba maadaan ku soo gabagabeynaya hadalka dama fiicna yarta waxa lagu soo shubtay be careful waxa waaye horta islaan hadda wax ka sheegto islaan adba waa tahay ya 45 jir ama waad ku socotaa ama waa tahay in wax lagu soo shubtana ma fiicna oo gabdhaha lagu soo diro gabdhaha diasporada oo kiyaalaha waaweyn xabiibti waa dad hore u maray baabuur wata guriga dhistay maxay ahaaytay oo kiyaalaha dantooda u gaartay waxa weeyaan guji waa hadda doontana waxaan kala rabaa inaan ku tuso raay kuleeyahay ku tusayna ku gashanayna hadda doonto ma garad wax uma soo qaadana waxaan u soo qaaday labadana aan ku tuso labaduba waa qorax waana qurux waana qaali qof gaara gata xabiibta guji waa marka gabdhaha diasporada waa gabdho hore u maray baawar wata حتى waxay wadaan baawur leeyahay lims baawurta dheer oo dalxiisyada basaska kuwa wada tagaasida kuwa wada guriyay gataan wax walba ay haystaan hamoodin inta darbi istaagtay mid yar oo waxba haysto wax lagu soo shubtay inay tahay be careful okay kuwa wax ku soo shubtana mid baan leeyahay arintana haddaad dadku wax ku shubanaysan u sheegaysaan waxa la rabaa wax reality ana u sheegta reality-ga waad ogtahay gabdhaha diasporada oo kiyaalaha wata oo baabuurta wata idinka fayl ugu jira idinka habeenkii oo dhan baryahay maanta oo dhan baryaa baayoy gacalisoy hadda xataa ku tara wareer dhamaandhow maxaad u jeedaa 20 jir hadda tahay 25 jir hadda tahay 19 jir hadda tahay anagu sirtiina waa haynaa ma garatay abaaye macaanto war abaaye macaan aniga haydihi hadda tiraahdo wuxuu ku leeyahay may abaaye macaano marka haddii la inta ka soo galay gabdhaha diasporada ha ku qaraarinina gabdhahana ha isku dirinina ma garatay gabdhaha diasporada waa dheeman waxaan se ka xumahay ragga Soomaaliyeed gabdhaha midaad caruurta uga tagtaan midaad habeenkii u dhafartaan oo baridaan mid maxay ahaytay aad caydaan oo intaad ku soo dirtaan ku soo shubataan oo soo dirtaan ana ka xalsiiyay ana waan oga kulli waan oga waxa ku shaqaystaan gabdhaha diasporada single motherada way og yihiin ya abaaye macaano hina tirahdaan ma garan marka gabdhaha noo soo dirinina idinku na soo ataaga afwaab qabna ma garatay afkan afka celina maxaa la yiraahdaa la kaado haddaad soo jawaabtaan ya oo aad iska kiis ka waashaan ya horta waa soon oo ma rabo inaan wax sheego laakiin waxa lima tag meel jacasha kuma simo waan runtii inaan u jawaabaan doonaa dadkaas magacan aan ma sheegayo laakiin haddaad soo jawaabtaan oo isku dadaan inaad maasay kiis ka wal samaystaan oo islaamaha wax ka soo sheegtaan anagu islaama waanu nahay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay bana gaarsiiyay waan isku kalsoonahay ma garan waan isku kalsoonahay marka haddaad isku dadaan soo jawaabtaan oo kiis ka waashaan oo islaamaha ku sii socotaan be careful okay haddii aad soo balajay soo bixisaan waa deal waa kula joognaa waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed waa idin jecelahay waa mahadsantihiin inkastoo soontahay mar inaan xataa taabto waligeena wallahi ma taabtaan qofka kuma mashquulin laakiin dadka la bahadilaayo oo waxaysan ahayn lagu sheegayo oo dabcan haddii wax la jilaayo waxa la jilaa wax macquula waxa bulshada bay'ada wax markaas ka jira laakiin wax been haddii lagu soo shubto 45 jir waa dhacdhaano 40 jir maxay dhacdays inama 40 jir haba jireen 45 jir gabdhaha jira oo la guursan wali oo inama adduunka aan joogno adduun hore u maray
gabdhaha konton 45 waa meelaha ugu fiican yihiin oo tacliintooda ku soo gabagabaystaan education weeyaan ma ahan dad oo wax lagu shushubto waa dad isku filan isku kalsoon marka ka dhamaada hooyooyinka islaana cay maahan alxamdulilah rabbil caalamiin qofkii sharaf lihi oo ku gaara nacam wanaag iyo sharaf ku gaara da'diisa alxamdulilah rabbil caalamiin kalsooni waan isku qabnaa mana aynaan da'diidayno laakiin sida xun ha u adeegsanayna hooyooyinku iyo gabdhaha diyaasbaradahi waxaad ogaataa inay yihiin dad isku kalsoon dad hore u maray dad gaariyaashooda wata shaqaysta educationa guryo gatay ciidana aan u baahnay ilaahay wanaag ka sokow qofkii u soo baahdan si wanaagsan bay u qaabilaan haddii ay dantooda ka dhex arkaan haddayse dantooda ka dhex arkinana annagu waan ognahay habeen walbaad ku dhafartaan leen yiraahdo waryaa waxaan kuu sheegaa maandhow gacal raalli ah marka waa mahadsantihiin waan jeclahay ummadda intada Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed anaa ka xalsiiyey ya gabdhaha Soomaaliyeedow anaa idinka xalsiiyey waan ogahay waxaad tihiin gabdhaha Soomaaliyeed ragga wanaagsan kuma jiraan xalaal cali ragga wanaagsan wax fahmaya oo bay'ad runka sheegaya oo sida sayta wax sheegaya oo aan gabdhaha isku soo dirin wax ku soo shuban ma ahan ragga wax ka sheegaya okay thank you very much waa mahadsantihiin bulshada Soomaaliyeed bye